بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس باكو دارتي بولاهي قرحدي والضحاها يفتين كده والقمر إذا تلاها والقمر ضيحي باكو دارتي إذا تلاها مركا قرحدي رعاه كدبتكو والنهار إذا جلاها والنهار مالك باكو دارتي إذا جلاها مركا فيده قرحدي ومعناه waxa way qorrax la aragayaba maalin la aragayaba qorrax baa soo baxaysa والليل إذا يغشاها والليل habeenkii baa ku dhaartay إذا يغشاها marka uu daboolo wuxuu daboolayaa qorrax ayuu liqaya والسماء وما بناها والسماء baa ku dhaartay وما بناها iyo dhismeeda marka adduha barqanka la yiraahdo لكن كوا ضوء هذا يفتين كذا وهذا يجار وقت جاي يقول افتين بلانت قرح وهارك دكتيس أركاسا يقول افتين بلانت برقلة ده يحيل راعي قرح لي وما ريال ورجية بدو لما مجرها إياه هالكيلها وطلق علي أي ورجية مالن كذا قرح لي موتي وكوكب نهارية واحد قام مالنتي افتيمية أصاب وقنية هذين كنا يدي بالطوالي oo meesha uu ka saaray inta runtii waa aayad aad iyo aad u cajiib badan habeenkii maalinkii gabaldhacaya waa bariga barqiga iyo duhurka intaba wada fiirsanaysa wasamaa'i wama banaha bulhay samada iyo waxaan ku dhaartay dhismaheeda والأرض وما طحاها والارض dhulkii baan ku dhaartay wama tahaha iyo kala filinteeda ونفس وما سواها ونفس بان كدارتي بو لهيدي وما سواها يهجاتشنتيدا الهي وهجاتشي وتسويتها وي فألهمها فجورها وتقواها فألهمها تنوح وتسي فجورها وحي اي كو غاروبيس وتقواها يا لك عبسجيد الله سيدا كل هذه وتنو سالي قد أفلح من زكاها انت أصلا كل قد أفلح وحل ليباني من زكاها قفك نفتي هاديه في حمان تكالتك علمي وقد خاب من دساها وقد خاب وحهوغي قول دخيستي من دساها قفك نفتي دحتين بيه حمان كل بديان لو ان كان بدبادين والسماء وما بناها ما ابو مستريين كما علينا مركز دايره iyo wixii ka shunay master uu ka soo baxay sabada iyo dhismaheedii dhulka iyo kala filintiisii waa nafta iyo hagaajinteedii sida wanaagsan Ilaahay u abuuray fi ahsan taqwiim waxa kala culimada qaar kood ay ku macneynayaan mantan inay tahay ma oo bimaana man wala dhacda quraanka iyo luqada carabiga meelaha qaar kood oo man oo bimaana man ma oo bimaana man iyo mararka qaar kood manta laftigeeda oo ma macnaheedu yeelata asalatan midna waxay loo isticmaalaa wixii aqli leh ama wax karanaya qaar kood midna maadana xayawaanka loo isticmaalo marka taas waa lagu fasiraya marka macnaha culimadaasi ay ku sheegeen waxa weyn la yiraahdo والسماء وما بناها ومن بناها سمدي إلهي بنيي هجاتيي والأرض وما طحاها يدلك إله كلافديي ونفس وما سواها هي النفس هي ومن سواها إلهي سدا ونكسر أبو رأي مركا إلهي بس كل عرمين شيء إلهي وكل أرتنا وحوي قفك نفتي سندي فيين وهرم مريكا ككلنا هلاك سمي فألهمها فجورها والتقوى إلهي بقى وافجنت إسكاله هداية إنه قفك قلبك سيلاي قوابورا يا لك عبسك إلهي بقى عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وحا دسيقو النقل يا هذه يتشار مركا ميل سلاو حق ليسو أي الله إلا دس الشيء في الشيء أسوأ معنيه بها موقالك أي آيات تلمام يساقفك مع سيادة نفتيس للا سبيني مديما ميدو سيدي بيسيلا ولبنو وقفكي وصلا لغا قاتل لغا واي تصالى إلهي وبحيها طبعا ذاتك النفتو دي حمانتا كل بديها آخرية الدنيا بس يعني
qad aflaxa man zakkaaha waqad khaaba man dasaaha. marka macnaha caamka ah ayuunbaa wanaagsan. sakaatu fidrigii waa macno ka caamsan wey. كذبت ثمود بطواها kadabad way beenisay thamuudu qolada la yidhaahdaa rasuulkii bay beeniyeen bidaqwaaha kibirkeeda darti. إذ انبعث أشقاها id waqti bay beeniyeen inbacatha uu soo baxay ashqaahaa qoladaa kii u guuldarro badnaa. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها faqaala lahum wuxuu ku yidhi rasuulullah rasuulkii ilaahay oo saalixa naaqat allah hasha ilaahay daaya daruu naaqat allah war ilaahay hashiisana uu soo diray mucjisadaa daaya wa suqyaahaa iyo cabitaankeedana ha ka hor joogsaninee daaya. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها fakadabuuhu way beeniyeen facaqaruuhaa way dileen hash adhuun dhabeenay boqongooyeen. fadamdama calayhim waxa uu ku daboolay rabbuhum ilaahoodii bidanbihim bisababi danbihim gefka ay geysteen awgeed cadaabun buu ku daboolu dam kaga dhigay. fasawaahaa markaasuu isku simay meel ka muuqata la waayo. ولا يخاف عقباها walaa yakhaafu cuqbaha walaa yakhaafu ilaahay kama cabsanayo cuqbahaa qoladaa uu halaagay godobtooda ilaahay kama cabsanayo. waa run yaa wax weydiin karaya odhanaya ilaahayo maxaad kuwa ku gashay laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun. reer thamuud waxaa ku kalifay in ay beeniyaan rasuulka ah duqyaan baa ilaahay uu ku tilmaamay waadaama cadaaladda bidaqwaaha xadgudubkaa iyo kibirkaasaa sababay in ay beeniyaan ilaahay rasuulkiisi saalix. waayo qofku beeniyaada waa kibray wuu qooqo xadii ilaahay u dhigay u tallaabay. kan ilaahay u idin bacatha ashqaaha ummadaasaa loo idaafeeyey. waktiga beeninta ugu foosha xume ay ka timi waxay ahayd markuu soo baxay kii ugu gaalsanaa ashqa haadihi lumma reer thamuud ninkii ugu gaalsanaa markuu soo baxay. fatacaadaa facaqar markaasuu mindidii laacayoo dabeetana daf buu siiyo waa kharajiye. inbacathana waa ficil maadi ashqaahana waa faacilkeedi. marka soomaalidu meelay ka keeneen ma aqaanay hashii nebiga idinbacaf loodhan jiraya. idinbacaf ficil bay ismi ka dhigeen dayla naxwa badan maa uma sii baxsaneen. hashii nebiga ee idinbacas allaha kaaga dhiga buu markuu ducaynayo ama dheehadii nebiga. marka nin wuxuuna tilmaamaysaa ninkii reer thamuud ka tirsanaa hashii nebi saalix dilayay oo baxay oo mindidii qaato hashii gowracayun bay aayaddu tilmaamay. ahar axmed baa filaya inuu ahaa ka warinayay aan sanadkiisu qawi ahayn baa sheegayay inuu nebigu ui ummad waxa ugu gaalsan caliyow kii hashaa gowrace qudaa binu saarif loodhan jiray iyo ka adiga kugu dhufan doona dhakada ee ilaa dhiigu garhka uu yaaco. cabdiraxmaan imuujim ninkii loodhan jiray dee cali dilay. cuqbat bnu abi mucayd ayuu mararka qaarkoodna nebigu ku tilmaamaya ashqa haadihi lumma ummadanka ugu gaalsani inuu iyo kii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dusha ka saaray mindhicirkii hashii la gowracay isagoo nebigu sujuudsan. idin bacatha ashqaaha rasuulkana waxa uu leeyahay war hasha daaya cabitaankeedana daaya. marka weerarku hashana uu ku maqan yahay in biyaha loo diido laga cuno qabatayana waa ku maqan yahay. dabeedna may joojinin fakadabuuhu facaqaruuha. hadda waxaad isu barbar dhigtaa in bacatha ashqaaha kii ugu gaalsanaabaa usoo baxay si uu hasha u gowraco. haddana ilaahay wuxuu ihi way beeniyeenoo markaasay gowraceen. dee midunbaa gowracay. inta kale laakiin maxay ahaayeen taageerayaal iyo u jiibiyayaal ayay ahaayeen. waxa la yidhaahdo xumaanta qofka taageeraana sida wuxuunu la mid yahay un furiyaha ka furiyuun buu la mid yahay. sidaa daraaddeed ayaa cumar bnu khadaab radia allahu canhu markii uu ka qisaasayay nimankii ninka dilay dhowr nin oo nin dilay wuxuu reer sanacoo dhan hadday nin qof dilaa waa israacin. marka waa jariimadda oo la taageero laga raali noqdaa wayadood ku jirta un. damdama waa ficil ka turjumaya habka uu u dhacay cadaabkan ilaahay culayskiisa waa uu ku daboolay cadaab uu ku daboolay. fasawaaha markaasuu isku simo meelay mareen la waayo walaa yakhaafu cuqbaaha arrin ilaahay u gooniya wey. kamaa yakhaafu alru'asaau waalmuluuk caaqibata maa yafcaluun. mid kasta oo madaxay
ama cid kastoo awood lahoo adduunyadan dhaadatay oo awooddeeda ku dhaadatay waxa ay geysata way ka warwartaa. wadab bay ka cabsanayaan, dabagal bay ka cabsanayaan. dadka maanta muslimiinta ah ee la laynayo waxa ka cabsi badan marka runta loogu tago gaalada laynaysa. gaalada laynaysa ayaa ka cabsi badan. in dhaweyd waxaa tegayaan ciraaq markii uu soo marayay kan gaashaandhigii Ameerika xagga hoosena dabaabada ilaalinaya iyo gaadiid helikobtaro markaa mishigaana ridayaana dushay socdaa. waa gaarigiisa dhan walba waa laga ilaalinaya. fii cuqri daarihim halka ay joogaan bay runtii ku cabsanayaan. waxaasoo dhan waxa weeye waxaan godobta la idhaahdo cabsidaasay leedahay. laakiin ilaahay wixii u geystaa dulmi maaha, waa xaq iyo cadaalad. walaa yakhaafu cuqbaaha. godobna kama cabsanaya cid ka daba timaada.